aduu haddaad dadka intaad wax siiso intay adiga ku dhaafaan mid kale ay u mahadnaqaan kaad korisay ee lacagta siisay jaamacadda ka bixisay hadduu ku idhaahdo waxba qof kale halkan jooga isaga mahadnaqo waad cadhoon lahayd waxaad odhan waxbaanu siinay haddana mahadsanidna ka weyn inta badan guryaheenna waxaa looga dhaqmaa sidii awaamir wariyaa kaale adigu orod madrasada qabo adigu saaxo soo galaya wax cun orod soo maydho jiifso wax kale lama socdaan sidaa xerada askartaa looga dhaqmaa askarta waa kala sarraysaa jananku amarkuu soo fuliya inta kalena waa fulisaa su-aalna laisma weydiiyo iyaga dhexdooda askarta lama yidhaahdo janan maxaanu sidaa u yeelaynaa ma jirto waa fuli saasaa lagu yidhi dunida markaynu joogno had iyo goor waxa maqashaanuun xuquuqda dumarka iyo xuquuqda caruurta iyo xuquuqda bulshada iyo xuquuqda shaqaal waxaa waa maqashaan way yartay intaa maqashaan xuquuqda ilaahay wax kasta uu ku weydiinaya maxaa cirku saar u noqday maxaa dhulku saar u noqday maxaa halkan caynkan u noqotay waxaad aragtaba uu ku weydiinaya su-aashiisu way tira badnaanaysaa warnaga ama waxba garan maysid waxbaa ku odhan waxaad qiyaastaa majlis nebi maxamed fadhiyo oo dee saxaaba fadhido oo nin yaroo dhallinyaro intuu iska soo galo u yidhaahdo aniga waxaan rabaa in lay fasaxo oo zina lay fasaxo suuqa inaan iska gala aniga ha lay fasaxo waxna loo ballan qaado waxaa helo inuu thawaab helayo inuu kan helayo imsaa ilaahay qur-aanka janno kaga warramaya inaan arag iyo nicmo iyo waxa taalla waa dhiirigelin layna dhiirigelinayo imsaa ilaahay ka warramaya cadaab iyo ciqaab iyo naar iyo qiyaamo iyo mashaakil dambeeya waa cabsigelin layna cabsigelinayo wacdiguna waa intaaba in dadka aakhirana loo sheego oo la cabsigeliyo adduunkana loo sheego naar iyo jannabana looga warramo ilaahay markaa wuxuu leeyahay wardadoo dhammow mawcida baa idin timi markaa cidada waanada cidina kama maaranto walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maaji iyo keyrkiiba mala warinayaan alcirbaad ibnu saariya xadiidkii macruufka ahaa salaad subax buu nebigu istaagay dabeetana dadkuu wacdiyey mawcido aada u xeel dheer labuu wacdiyey mawcidada saxaabadu wuxuu ku tilmaamayaa ishuna wayna ilmaysay waa ooynay qalbiguna waana gilgilmo wuuna jilcay dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mawcidadii markuu sheegaanan istaago wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow saaka wacdigaagu wuxuu egyahay inaad naga tegayso yacni inaad waxba kuu hadhina tii u dambaysay aad noo sheegtay ayuu saaka wacdigaagu u egyahaye noo dardaaran bal dardaaran noo sheeg wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi markaa waxaan idin faray calaykum bitaqwa allah ee ilzimuu waxaad laasimtaan ilaahay cabsidii iyo wasamci waaaca ismaqal iyo kala dambayn ismaqal iyo kala dambayn ilaahayna ha maqashaan rasuulkiisana ha maqashaan dadka maamulka idin hayaa maqashaan kala dambaysaan xataa buu nebigu ku tilmaamay wain cabdan xabashiya haba noqdo cidda idin talinaysa kaljarisku dhaqamada dadka marka la eego waxaa laga yaabaa dad ama mujtamac la yeeso oo macnaheedu waa maxay aan la filaynin de inuu xagga sare iyo madaxnimada noqdo jaahiliyadii carbeed marka loo eego nin madoow caynkani inuu madax u noqdo dee tirada uguma jirin markaa nebiguna wuxuu u tilmaamayaa daa idinkee xataa kuwa yeesaysaan ama maagaysaan hadduu madaxa noqdo walow kaana uu noqdo in kala dambayntu ay noloshu saasu ku soconayso wuxuu nebigu u sheegay oo kale calayhi salaatu wasalaam aniga dabaday muran badan baa arki doontaan waxaan idin farayaa sunnadayda iyo sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin aniga sunnadayda iyo kuwii khulafadayda hanuunsan waxay culammadu yidhahdeen masaladan inta badan waa qadiya siyaasiya waayo sunno diineedoo dee waxyigu wuxuu ku dhammaaday cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aan iyo xadiidku ku dhammaaday laakiin kuwa kan sunnadoodu waa maxay waa sidii ay wax u maamuleen ay dadka ugu cadaalad sameeyeen islaamka u faafiyeen xukunka u xukumeen idan qadiyada siyaasiga iyadoo laga hadlayo wax laga horreysiiyey wacdi dadka la wacdiyo si qalbigoodu u furmo markii qalbigoodu furmay ee ishu ilmaysay ee qalbigu gilgilmay ee ay su-aasha weydiiyeen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qadayaadkoodii dunuwiga ah iyo waxay u baahnaayeen inay qabsadaan uu ugala hadlay si macquul ah
أيها الأحبة وحلينا كو وين ندكتا المه سير وقفرا وين قلبي يسنوفر ما لبا وين نسودينا إن نقنعين كرنو قنعين تما تغاني انت بدن قريه إنه waxa looga dhaqmaa sidii awaamir wariya kale adigu orod madrasada qabo adigu saaxo soo galaya wax cun orod soo maylo jiifso wax kale lama socdaan sida xirada askarta looga dhaqmaa askarta waa kala sarreysa jananku amarku soo fuliya inta kalena waa fulisaa su'aalna la isma weydiiyo iyaga dhexdooda askarta lama yiraahdo janan maxaanu sidaa u yeelaynaa ma jirto waa fuli saasaa lagu yidhi gurigu markaa thakna caskariya maaha ilmuhuna waa qof nolosha ku soo biiraya siduu nolosha ugu soo biiri lahaa ee dadka ula qabsan lahaa in loola hadlaa buu ku fiican yahay maxaa markaasi muhima qof weyn iyo qof yarba waanadu waxbay tartaa qof weyn iyo qof yarba in la qanciyaabaa roon waliba carruurtu markay soo gaadha 4 jir bay yidhaahdaan 5 jir waa markuu ugu su'aal badan yahay wax kasta uu ku weydiinaya maxaa cirku saan u noqday maxaa dhulku saan u noqday maxaa halkan caynkan u noqotay maxaa kale waxaad aragtaba uu ku weydiinaya su'aashiisu way tira badnaanaysaa warnaga ama waxba garan maysid waxbaa ku odhanay inuu caqligiisu qaadi karo u sheeg ilaahay waa abuurayna qancintu markaas haddaad weyntana wuu u baahan yahay haddii la yaryana waa loo baahan yahay halkan aayadatan iyadoo aan ku noqon doono وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله بيري وريا إلهي أو شرك يلي سببت وامحي إنه قنعي يريسا نشاو محان إلهي لو شرك يلي أقول إن الشرك لظلم عظيم سببت وحويا شرك هو ظلمي marka ilmaha kan waa ilmo la nacbaysiye dulmigu wuxuu yahay dulmigu oo qofka oo xaqiisa la dhinac mariyo ilaahay xuquuq buu inagu leeyahay isaga ina abuuray isaga ina khalqay isaga ina arzaaqa xuquuq buu inagu leeyahay dunida markaynu joogno haddii goor waxa maqashaanuun xuquuqda dumarka iyo xuquuqda carruurta iyo xuquuqda bulshada iyo xuquuqda shaqaal waxa waa maqashaan way yartay inta maqashaan xuquuqda ilaahay ilaahay xaq buu leeyahay in keligii la caabudaan cidna lagu lamaanay aduu maxaad yeeli lahayd walilaahi almathalu lacla aduu haddaad dadka intaad wax siiso intay adiga ku dhaafaan mid kale ay u mahadnaqaan kaad korisay ee lacagta siisay jaamacadda ka bixisay hadduu ku idhaahdo waxba qof kaloo halkan jooga isaga mahadnaqo waad cadhoon lahayd waxbaanu siinay oo haddana mahadsanidna ka weyne ilaahay ina abuurtay ka waran خلق خلقي وحنا سيء رزاقي أمومي عافماد نسيه هنتينا سيه ضدينا كدقي حيوان كأنا قصاعي أودم هاد نقي بل غيرك يوم هاد نقضي إلا الشرك هو غيرك يا الله ما هاد نقي هذين ولا عبادته هو ما هاد نق وإلهي غيرك يا الله ما هاد نقي مركا المها وحبرا يا كو شرك قبله والظلم وين نفط هذا حقوق دي إلهي هو الظلم كوا قنعين تاسي النبي عليه الصلاة والسلام نندا ليرا بويمي كيدا ليرا بويمي سؤال هذا غريب النبي ويتي أقول أنا محربة إن زناد الله يفصحه قياس مجلس نبي محمد فرديو وده صحابة فرديو وني يرد اليرين تسكت صقلا ويراهدو أنا جوحان ربائن لا يفصحوا زين لا يفصحوا سو غير أسك قال أنا هلا يفصحوا صحابة دي مركا والو قيلي مهما بيقولا ورام وقاله وحبكوا هاد اللي ما يسيد وحنا بقول عليه الصلاة والسلام مسكت داي أذنه يسوع دوا بقولي ما ماجن ما عاين ما أورن ولا حكوا هاد ليسا إنه كان عيابه رباه وحشاه si uu waliba wax ku fahmi karayna wuxuu sheego soo dhawow wiilkii uu soo dhawow waliba ku yiri uu soo dhawaaday ilaa nabiga hortiisa soo fadhiistay dabeetana nabigu way xunta iyo wanaagsan baabka laba kalama hadana su'aal buu weydiiyay atuhibbu li ummak buu ku yiri
zinadana aad sheegayso hooyada miyaad la jeceshay hooyadan suuqa lagu weynaa way zinaysataa wuxuu yidhi may laa wallaahi jacalana ilaahu may buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay fidaagaaga hayga dhige inaanan waxaas hooyaday la rabin nebigu wuxuu ku yidhi wala nnaasu yuxibuunahu liummahaatihim dadka kalena hooyooyinkood lama rabaan wuu soo waday nebigu ilaa su-aala uu weydiinayay inantaada adigu dhashay miyaad la jeclaan lahayd buu yidhi markaasuu yidhi maya ilaahay hayga kaa dhigo kii lagu furtee walaashay inantaydu inay waxaa ku dhacdo walaashii baa la weydiiyey may buu yidhi habaryar baa la weydiiyey may buu yidhi eedaa la weydiiyey wixii dumar hareerihiisa isaga ku xeernaa ama kuwa waalida ha u noqdaan ama kuwa u dhalay ha noqdaan ama kuwa walaalaya waa la weydiiyey xumaha ma la rabtaa intiiba wuxuu yidhi maya lama rabo mid kastana markuu idhaha lama rabo nebiguna wuxuu idhaha dadkuna kooda lama rabaa nina walaashii gabadh kastaa rag bay la walaalatay walaalahood cidina lama rabto eedooyinkood cidina lama rabto dee dadkuna waa intaa uun qof walba qof baana dhalay qof baana walaalaya qof baana eedow ah qof baana habaryaru ah dadkuna intaa lama rabaa markii dambu nebigu calayhi salaatu wasalaam gacanta intuu laabta ka saaray buu u duceeyey wuxuu ku yidhi allaahuma kfir danbah watahhir qalbah waxasin farjah ilaahayow ilmahan dembigiisa cafi qalbigiisana u daahiriyo u nadiifi farjigiisana u dhowr saxaabiga xadiidka warinaya abaa umaamat albaahili wuxuu leeyahay falam yakun bacda dalika alfataa yaltafatu ilaa shay dib cid dambe isagoo hareeraha eegaya lama arag yani muxuu tilmaamayaa wuu qanciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo wuxuu doonayaa ay tahay waxaan sharciga ku bannaanayn majliska uu ku weydiinaya nebigana ay tahay majlis dadku fadhiyo afxumadaana ku hadlay ayaa nebigu muu maagine wuu qanciyo si fiican buu ugu sheegay nin kale uu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo reer miyiga carbeed wuxuu yidhi xaaskaygii ilaahay rasuulkiisiiyo ilmo madow bay dhashay waxaad moodaa markaa ninkan inuu shakisan yahay nebigu su-aal buu weydiiyey markaa wuxuu ku yidhi geel ma leedahay markaasuu yidhi haa markaasuu wuxuu ku yidhi geelaag waa midabkee markaasuu yidhi waa xum waa geel cascas baan leeyahay wuxuu nebigu weydiiyey hal fiiha min awraq wax booro booro ahi wax qoolaydoo kale midabkeeda ahi ma ku jira markaasuu yidhi haa suu yidhi xaguu ka yimid geelagu waa cascasaaya ninka gela wuu yaqaanaa hiddihiisa iyo firkiisa iyo lacalahu nazachu cirqun buu yidhi hiddaha hore baa laga yaabaa inuu jiidanayo dee geelalshii hore ee sii dhalay inuu ku jiray awr madow ama hal madow ama kanoo dee kuwaas inuu jiidanayo cirqigubaa la arkaa buu yidhi dabeetana ninkuu nebigu wuxuu ku yidhi wahada lacalahu nazachu cirqun kanna adigu awyeeyooyinka iyo awowyada iyo midabadoodii garan mayside lacalahu nazachu cirqun yani ilmuhu inuu u ekaado aabbaha iyo hooyada shardi maaha awowgaagii saddexaad buu u ekaan karaa ayaydaadii shanaad buu u ekaan karaa waayo hiddaha waad sidaa dabeetana nebigu si caqliya buu u qanciyey maxaan leenahay markaa ilmaheenna waxaynu u baahannahay inaynu caqligiisa ilaalino qancino cawaatiftiisa ilaalino waanino laakiin su-aasha muhimka ee ugu weyni waxay tahay waa maxay haddaba waxa ugu weynaynu ilmaha ku waaninayna